magaalada Wajaale ayaa maanta waxa laga bilaabay olole nadaafadeed oo laga waday xaafadaha iyo shaariicada waaweyn ee magaaladaasi Tog Wajaale waxaana qayb weyn ka qaatay shaqaalaha nadaafadda ee dawladda hoose ee magaalada Tog Wajaale haddaba telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV oo dareenkooda la wadaagay dadweynaha magaalada Tog Wajaale ayaa waxa fikirkooda ka dhiibtay qaar ka mid ah dadweynahaasi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa nadaafadaha la ilaaliyo ciyalkeennii baa xagan jooga marka cudur bay ka qaadayaan marka dadku ha ilaaliyaan xashiishka iyo xaafadda bilaadanka soo hordhigayaan ciyalkoogana adan xashiishka xaafadeenu buu ka soo baxayaa in anagu nadaafadda ilaashin cid inoo ilaalinaysa ma jirto xanuunna laga qaadaya rag iyo dumar waa la soo dhigaa marka inaga daaya waxaan xashiishyadan iyo waxaan guriyaha soo dhigano gurigeena baan ka soo qaadanaa gurigeena waan hordhiganaa marka inaga daaya uma fiicna xagga diiniyan xataa uma fiicna gurigaaga inaad xashiish ka soo qaadad guri kale hordhigto uma fiicna marka waxaan doonayaa inaan nadaafadda ilaalino hadayna anagu nadaafadeena ilaashin cid inoo ilaalinaysa ma jirto abiga raawo jaalada waxaan u sheegayaa in xashiishka ay xaafad inta ka soo qaadaan xaafad hor dhigayaan in ilaahooga ka baqaan iska daayaan oo naag waliba gurigooga ku horgubato ama joonyada ku sameeyaan ama goobtooda laga qaadayo intay joonyada ku sameeyaan hay dhigaan maanta dawladda hoose si fiican bay hawsha u wadaa waxaana shacabka raawo jaalada leeyahay war hortiina dhiganta xashiiska urursaan si ay baabuurku u qaado oo naguna dawladda hoose ula xisaabtano sidoo kale waxa halkaasi aanu kula kulannay agaasimaha arrimaha bulshada ee dawladda hoose ee magaalada Tog Wajaale isagoo dadweynaha magaaladaasi uga digay inay xashiishka banaanada ku qubaan isla markaasina u sheegay inay hagaajiyaan xashiishka si ay uga qaadaan waxaana hadaladiisii ka mid ahaa anigu waxaan agaasimaha arrimaha bulshada iyo fayadhowrka marka magaaladu waxaan u sheeganaa oon ogeysiinanaa maanta laga bilaabo in iska rogooyinku ay xaafadu hormari doonaan xaafad walba waxaanu u ogeysiinanaa in u sheeganaa xashiishkan ay guryaha intay ka soo saaraan dariiqyada iyo balloodhada dadku leeyahay iyo shaarac ay ku soo ciddii sidaa fulin weyda awaamirta qaadan weydana ganaax ay ka soo garwaxsan waayaan baa lagu dhifanayaa dariiqa iyo shaaracyadan la dhigayo iyo waxaan nadaafad darradani daynooma fiicna way nagu foolxumo inaan wax hagaajisano bilicdeenaan muujinaa qurux badan waxaan leenahay markaa wixii aad xidhxidhasaan nin walba waa inuu jawaan ku soo xidhaa isagoo xidhxidho la noo soo dhigaa bannaanka annaguna aannu qaadnaa qaadisteeda iyo guristeeda annaga iyo gaadiidkayaga iyo shaqaalahayagaa ku filan war wixiise haddii la falqiyo uu nin waliba halkii ku toosan ku tuuro dee xabad u qaadi kari mayno calaa xabad uma qaadi karanno markaa waxaan leenahay waniyow idinkuna dhankiinna ka dadaala annaguna waannu dadaalanaayey ciidan shaqaalaannu qornay oo inagu filan oo markaan wax isla qabanno nadaafadda ilaalin karana waynu haysannaa gaadiidna waannu haysannaa weliba ina soo kordhinnaan doonanaa dee aynu wax wada ilaashanno far kelii foolma maydheh kii ilaalin waaya ee aannu nootiiskaa siinno kii awaamirtaa hoggaansami waaya annagu ganaax dhabarjab un baannu saari waannu la dhici un lacag un baannu ka soo xidhayn waa Cabdisalaan Maxamed Bade Bulsha TV Tog Wajaale.